sidaad goobjoog ka ahaydeenba wuxuu ahaa kulan ku saabsan kulamada joogtada oo la leenahay saaxiibada caalamka ee dalka jooga, gaar ahaan dowladda Norway oo safiirkeeda runtii aan la yeelna kulan miro dhal ah oo ku saabsan sidaan u horumarin lahayn kalluumeysiga iyo blue economy-ga. Anagoo og dowladda Norway inay tahay dowladaha xagga kalluunka aada ugu horumarsan, xiriirka labada dal iyo saaxiibtinimada iyo isbeddelka xagga horumarka dhaqaalaha ayaanu xoogga saarnay. Wuxuuna kulan miro dhal oo laga faa'iiday runtii wax badan la isku afgartay. Waxaan rajeynayaa insha Allah in sanadkan uu noqon doono sanad runtii labada dalba ay kala faa'iidaystaan. Markaan joogno wasaaradaha wax soo saarka dalka, waxaan u shaqeynaa in dalka resource-giisa ama hantida dalka uu leeyahay laga faa'iideeyo oo dee la iibgeeyo adduunyadu ay iibsato. Maxaa yeelay saa ogsoontihiin dhaqaalaha dal kasta wuxuu ku dhisan yahay hantida isaga uu leeyahay sida uga faa'iidaysto. Marka waxaanu isla jeexjeexnay Soomaaliya resource-geeda xagga kalluunka uu yahay aad iyo aad mid muhiim u ah, isla markaana runtii laga faa'iidaysan karo si dhaqso ah oo wax ku ool ah looga faa'iidaysan karo. Iyada oo runtii haddan aan leenahay dad Soomaaliyeed oo khubaro ah oo aad iyo aad u garanaya waxay ka shaqeynayaan, awoodna u leh inay dalka u faa'iideeyaan. Marka intaa ayuu guud ahaan ku saabsanaa kulanka. Waana mahadsantihiin.